بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. waxaan soo wadnay cashirkeena imtixaanaha ahaa ku saabsanaa fiqhi fi lmadhab الshaaficiي, khaasatan kitaabkii matn algaaya wاtaqriib. waxaan ku guda jirnay istinjaha wuxuu maraa waxyaaba waajibaad ah iyo waxyaaba sunno ah, aadaab laga rabo qofka ku istinjoonayo inuu maro. hadda waxaan ka hadli doonaa insha allahu aadaabtaas qeyb ka mid ah. wayajtanibu qaadi lxaajaha, qofka danta gudanayo wuxuu ka fogaadaa istiqbaala qiblati, qiblada qaabilkeeda, inuu qiblada qaabilo ayuu ka fogaadaa. wastidbaaraha, inuu dib jeediyo ka fogaadaa, qiblada inuu qaabilo ama uu dib jeediyo uu ka fogaadaa. hadduu uu joogo sunno waaye inuu ka fogaado istiqbaala qibla wastidbaaraha idaa kaana fii gayri mucadal lidalik, meel aan loo diyaarinin hadduu joogo oo musul uusan ku jirin, meel loogu talagalay uusan ku jirin, laakiin qibladii xaggeeda oo ka xigo shay murtafic ah, xoogay kor u qaadsan ku gambadan geed wuxuu yahayba ayuu ku gaban yahay. saddex dhudhunka saddex meeloodkiisa laba meel xoogay kor u qaadan hadduu ku aadan yahay in qiblada u qaabilaa waxay noqonaysaa qiblada inuusan qaabilin sunno ayay noqonaysaa. inuusan qaabilin oo qaabilkeeda ka fogaado, istidbaarkeeda ka fogaado. meesha uu joogo waa meel loo diyaarinin istinjaha iyo qaadi xaajaha, qadaa ulxaaja aan loo diyaarinin waayo, laakiin wuxuu ku aadan yahay shay murtafic thuluthay diraac, shay dhudhunka saddex meelood marka loo eego laba meel dhulka ka sareeyo, ama dhagax waaye ama darbi waaye ama waa geed, wuxuu doono ha ahaado ku aadan yahay. marka markaas waxaa sunna iyadoo sidaas ay jirto inuusan u dib jeedinin una qaabilin. waayahay inuusan shaygaas waxaa haddana uusan aada uga fogeynin shaygaas oo asiga iyo shaygii qiblada uga sukeeyey inay isu jiraan saddex dhudhun. waxaa jirto wax ka yar oo asal u ah in la qaabilin qiblada hadduu xaalkaba saas yahay. idaa aataytum algaa'ida falaa tastaqbiluu qiblata walaa tastadbiruuha, rasuulka sal bibowlin walaa gaa'id. idaa aataytum algaa'ida, markaad timaadiin meesha qaa'idka oo loogu talagalay in lagu musqulaysto, waxaa ka wadaa meelaha qaa'idka waxa yihahda meesha godka ah la dhihi jiray, meesha godka ah ee loo galo oo musqul ahaan loo galo marka duurka la joogo, banaanka la joogo, meelaha godka ah laysku qariyo. marka qaa'idka aad timaadiin meesha saxarada lagu saxaro loogu talagalay aad timaadiin oo aad inaad ku saxarto rabtid, meel loo diyaarshan ma ahan, laakiin waxaan ka wadaa meelaha oon laysku qariyo. falaa tastaqbilu qiblata, qiblada ha qaabilina, walaa tastadbiruuha, ana u dib jeedinina, bibowlin kaadi ha la qaabilina, walaa qaa'id saxarna ha la qaabilina. walaakin shariquu, qorax baxaysta, waqaribuu aw qaribu, amba qorax dhacaysta, dhanka qorax dhac u jeesta amba qorax soo dhac u jeesta, bari u jeesta. waa haddii qiblada aysan kaa jirin sharqiga amba qarbiga aysan kaa jirin, oo rasuulku meesha u joogay ayuu ka hadlayay. qibladiisa sharqina kama jirin, qarbina kama jirin. waxaa jirta marka arrintaas waxaa lagu soo qaaday ama uun sunno waaye in qiblada la qaabilin, sunno waaye haddii shay kaga aadan yahay shuruud aan soo sheegnay ay tahay. laakiin haddii ay tahay meel bannaan saxara ah meel bannaan wax isaga aadisan aysan jirin, meeshani meel loo diyaarsan aan ahayn, in la qaabila xaaraanba waa. markaas in laga fogaadaa waajib noqonayso, wujuub. yajtanibu qaadi alxaaja istiqbaal qibla wastidbaaraha wujuuban, markaas waajib noqonaysaa.
haddii meel makaan loo diyaarshay oo musulba ah oo xaajo gudasho loo diyaarshay qadaa xaaja loo diyaarshay haddii ay tahay na in la qaabilaa karaahi ma aha, xaaraam ma karaahina ma aha meesha loo diyaarshay حتى معناها خلاف ولا حتى معها سيدة مجموعة ويري إمام النووي حتى معها ويجتنب فهذا الندبا إذا صنع نموه البولة كعيدة والغائدة صحراء البولة كعيدة والغائدة والمد في الماء الراكد بيها فدية كل قائد مايو كل بولي مايو صنعهان وهي إنه رح بولا رسولك وعليه صلى الله عليه وسلم غائدكana waa lamid kasii daran yahaba haddii kaadi la diido biyaha saxarada kasii daran nahyigaas waxaa ku xambaaran inuu karaahi uu yahay biyaha haddii armaan qaliilba ha ahaadaan maxaa yeelay waxaa lagu dahiri karaa biyaha dhib ma laha biyo badan lagu sii shuba kaliya saas dhaarku noqonaya haddii habeen ay tahay waxaa lagu dhex saxaroonayo lagu dhex kaadinayo haddii habeentaa kasii daran maxaa yeelay waxaa yidhaha habeenka biyaha wax isugu imaado waxaana asuuma jinka isugu imaado biyaha meelaha biyaha ku jiraan jinka ayaa isugu imaado habeenkii marka inaan ku waxyooliyowdaa laga yaabaa oo jin meesha iska dhex dabaalanayo adkaadaad ay gaarto ku dharbaaxo wax ku gaarsiiyo biyaha marka raakida la yiri biyaha socdo see la yiraa biyaha socdo waxaa meesha ka muuqato biyaha socdo inaysan karaahi ahayn biyaha socdo qaarna waxay leeyihiin biyaha socdo xataa haddii yar yihiin karaahi waay laakiin biyaha socdo waxay leeyihiin qaarkood karaahi ma ahan oo biyaha socdo nijaasta way iska difaacayaan biyahaas cararayaan kale kistan yar oo markaas hal mar iska socdaa maahan kista kale ka hor ma gaari karto nijaasta ma gaari karto way kasii cararayaan qaarna way soo riixayaan marka waxay leeyihiin kuwaas karaahi maaha biyaha socda khilaafa ka jira laakiin khilaafa ka jiro waayahay biyaha socdo biyaha fadhiya waxaan dhahnay in qaa'id lagu sameeyo amba saxaro lagu dhex qaa'id amba lagu dhex bowlo waxaan dhahnay karaahi waa haddii uu biyahaas asiga uu leeyahay maxaa yahay dahaaro waa biyaha hadduu leeyahay dahaarana is u ceynoobin laakiin hadday dahaaro u ceynoobaan xaaraanba waay maxaa yeelay waxaa waaye wuxuu isaga dhigay biyo ku dheeray wax biyo ku dahaar qaatana ma laha hadduu asiga lahayn oo غeyr leyna xaaraam waay wax غeyr in la talfiyo oo la baabiyo nijaaso lagu baabiyana ma banaano hadduu asiga lahayn oo qofka غeyr ama biyaha musabalba waay biyo la waqfay waayo dadka wadada socdaan in iska cadaan loogu talagalay ama ku weysaystaan loogu talagalay marka waxay noqonaysaa xaaraam markaas la xilliga marka karaahi waa leeyahay waa markuu asiga leeyahay biyahana aysan haynin biyahana dahaar isu cuynoobin biyo kale iska heli karo tani wuxuu ka fogaadaa qaadil xaajaha تحت شجرة جيد كوسيس بولك إيغاد كوكل فوق هذا تحت شجرة جيد كوستيس المطمرات مرح بحين جيد مرح بحين هايو تحت هوستيس مكو قائد هايو مانكو مانا بول هايو مانكو قاعدين هايو مكفوقان هايو هاي حلقية وإني مرهي جيد الشجرة المثمرة مرح بحينيس مركب مرها صودا عايو صودا عميشي مية كوني جالسو بايو تصل لك بقى مركي كراهي واي كراهي وايلي حرام محل دي maxay meeyaha ku dhacayda عليه inuu ku dhacayaan ku nijayso hayd lama xaqiiqsanin maadaama xaqiiqo loo haynin hada waxa leeyahay karaahi waay wa fi dariiqi wadada ayuu kala fogaada wadada midna waxa waay mahjuuro waay midna masluuq waay midda la maro masluuq ah waay wadada la maro isticmaalo in lagu dhax qaaydo lagu dhax saxrooda hawaay karaahi waay كراهي وكفونا رسولك صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين لا بدل لعنة بدن كفوا هذا قالوا حلو وما اللعاناني لا بدل لعنة وحنا علنان ولا لعنة بدن ما محي قصير ايدهن يا رسول الله قالوا حوري الذي يتخلى ومتك مصوليسانا في طريق الناس ضدك وضدود او في ذل ما بهوس كودن طريق الناس هدي امصول كليتي waxaa dadka ku lacnadayo hooskood meeshii harsan lahaayeen dad macnaha nijaasiisidna sidoo kale way ku lacnadaan marka lacnadii ay sabab u noqonaysaa wadada lagu saxaroodo ama lagu kaadso waxay noqonaysaa lacnadii sabab u noqonaysaa
saas darteed waxa leeyahay marka dadka lacnad maadaama sabab u noqonayso iyada in lacnadaysa la soo qaaday iyada in lacnadayso lacnadayso waxaa laga fogaanaa meelaha xilliga hooska leeyahay hoos waxaa loo baadaa xilliga oo jiilaalka oo yahay qorax kuleel ay jirto aa loo baahan yahay waxaa jira xilli barxadaha loo baahan yahay meelaha qundhacada loo baahan yahay xilliga xagaaga waxaa loo baahan meelaha barxadaha ayaa loo baahan yahay sidoo kale meesha barxadda oo laisku imaanayo dadka isku imaanayaan ku sheekaysanayaan fariisanayaan idan waa laga fogaana thuqbi iyo baqa iyo duleelka godka meelaha oo macnaha godka hoos u duleelo waa lagala fogaanaa bawlka iyo qaa'idkaba maxaa yeelay godkaas waxaa suurtagal ah inuu xayawaan daciif oo ku jiro meesha kooyinka ama inuu soo boodo adiga oo nijaas ku gaarsiiyo ama adiga ku waxyeeleeyaba laga baqa marka godkaas waa laga fogaanaa waxaa kaloo jirta godka maskan jin dego marka adiga inaad ku waxyeelowdid ama maskiin oo nafley ah aad ku waxyeeleysid ama nijaas ay kaa soo gaarto ayaa laga baqaa saas darteed baqaas duleelkaas oo u jeeda akhirkeeda duleelka ay loo diyaariyey masuulshada gooni waay laakiin duleelka aan loo diyaarinin oo bahal iska qostay wax kale bahal iska qotay jiridkiisa u jeedid hadaa jiridkiisa u jeedid waxa ku jiro hadaa u jeedid dhib maaha hadaa u jeedin hoos u duleelo ha ku qaadinin ha ku saxaroonin waxaa waaye karaahi waaye walaa yatakalamu hadlo cala albawli kaadida iyo walqaa'ida saxarada dusha kama hadlo isagoo saxaro wado ama kaadi oo wado ma hadlo wuu aamusaa xaajada intuu gudanayo xaajada socoto ma hadlo dikrina kuma hadlo keyrkiisa kuma hadlo karaahi waaye ilaa haddii daruuro jirta maaha sida qof indhoole ah ayaa meel dab kusii dhacaya bagod ku dhacaro oo u digaysa war dabka iska jir godka iska jir waa leedahay dabka usii socdo war hala qabto canuga waxyaabas waxaa kaloo lagu ongol yahay oo biyo ii keen adigoo oo masuushiyaa ku oroday manaa danta aada ku haysay biyaha lay keen oo kale dalabkaas waa lagu ongol yahay laakiin taleefona isaga wada isaga sheekaysanaa waa ii soo dhaciyey hawshan waa socotaa waxaa waaye waa karaahi waaye markii aad taagan tahay oo ishubis aad ku jirtid laa ba's waxaa waaye xaala qadaa alxaaja intay danta socoto oo xaajada aad gudanaysid waa tan la diidan yahay inkastoo shaki ka imaan karo dadka hadday banaankaa maqlaan ay u malay karaan inaad saxaradiina wadid howsha wadid kuna hadlaysid haddii aad taaganta adiga wax karaahi ama jiraan walaa yastaqbilu shamsa qoraxda ma qaabilo walqamara dayaxna ma qaabilo walaa yastadbiruha ma labadan uma dib jeediyo shamsada qoraxda ma qaabilo mana u dib jeediyo waa markii qoraxda ay soo baxayso kale ama markay dhacaydo bisha markii ay soo baxaydo markay dhacaydo oo qaabilada marka suurtagal yahay markay hor jirta laakiin ma qaabiloosid marka labadaas waa laga ilaalinaa fi madhab shaaficiyi waaye maxaa yeele waxaa jirto khilaaf yar oo laysku haysto war istiqbaalka maayo laakiin istidbaarka ma ahan waxa laysku haysto istidbaarka ma ahan iyo istidbaarka labadaba wax dhiba ma jiraan waa khilaafaadka jira waaye ibn muqri ayaa rawada wuxuu ku leeyahay labadaba istiqbaalka iyo istidbaarka labadaba karaahi waaye imaam nawawi asna kitaabkiisa asl rawada wuxuu kusoo guurinaa inuu karaahiya istiqbaalka laakiin istidbaarka usan karaahiyahayn majmuuc wuxuu ku dhahaa asaxiix almashhuur waaye asaa muctamad ah uu leeyahay in istiqbaalka ma ahayn istidbaarka usan ahayn taxqiiqa wuxuu ku leeyahay laa asla likaraaha karaahida la sheegaya asalba ma laha almukhtaar ibaaxatu waa banaan tahaba in la qaabilo shamsada ama qamarka la qaabilo way banaan tahaba laa asla likaraaha marka imaam nawawi daraab baa ka dhacay waxaa kaloo laga sheekeeyaa marka lagu daraa beytulmaqdis qaabilitaankiisa istidbaarkiisa haddaba had mar oo qiblo u ahaa jiray in la qaabilo amba loo dib jeediyo balka waran waxay qaadanaysaa shamsada iyo qamarku la mid yahay
haddii la yidhahdo shamsi qamarka istidbaarkooda istiqbaalkooda karaahiye waay isna karaahiye waay istidbaarka karaahiye ahayn laakiin istiqbaalka karaahiye waay isna karaahiye istiqbaalkiisa karaahiye noqonayo labadaba asal ma laha haddii asal ma laha asigana waa islamid xukunkaasu maraa waxaa kaloo istinjaaha kitaabka hadda nooma sheegin sunno ah in qofka dadka indhahooda laga fogaado marka meel saxara la joogo banaan la joogo meel lamid ah in laga fogaado dadka aragtidooda laga fogaado oo la tago meel ay codkiisa ka maqli karin khaalidka waxa soo baxaya codkooda maqli karin urkiisa ay urihaynin urkiisa u soo gaaraynin in laga tago waxa cudurtoomi karo ibticaadka in qofkan ka fogaato wuu cudurtoomi karaa haddii cudurtoomo asiga ay meel kale dirbiga kusoo celshaa meel u fogaata mala ama meel banaan lay kasii horeyso in ayaga kaa fogaadaan ayaga kaasi kadaano ayaga kaa dadka indhahooda waa la iska asturaa markaa fadhiisad kadib inaysan kuu jeedin waa la iska asturaa haddii wax kale ugu yaraan in macnaha cawrada aysan arkin markaa fadhiisanaysid waa la iska asturaa man ata alqaa'ida oo qofka saxarada imaanayo falyastatir hays asturo rasuulka sallallahu alayhi wasallam hays asturo fa in lam yajid duusan helaynin ilaa an yadmaca inuu soo aruso soo kulmiyo kathiiban buur iyo carro min raml bacaada falyastatir bihi ha isku asturo haddii wax kale aaweysan ana carraa soo kuusaysa meesha meel barxada waaya cad meel cad marka barxadii waa soo kuusay markaa fadhiisanaysid marada hal mar fig iska siimaysid tartiib markaa fadhiisatid cawradaada looma jeedo fadhigaada kor waa loo jeedaa laakiin cawrada looma jeedo sidaas samaynaysaa waa yahay wuxuu kala la yiraahdaa meesha mawducu hubuub riix meesha dabeesha ay kasoo dhawanayso kasoo kacayso meesha dabeesha ka kacdo mala fariisanayo meeshaas oo xaggaas u jeesamayo maxaa meesha waxaa dabeesha xaggiisa haday u jeesatid majaastii kugu soo firdhinaysaa marka idan karaahi waaye meesha dabeesha ka kacayso meel dabeesha ka kacdo jirta garaacayso meel dabeesha ka garaacayso waa laga fogaana meel adag sidoo kale idin ugu saar dadka mas'uul galayaan meel shamiidad iska fadhiisanaya shamiidad aa fadhiisatay wax ka dhalanayso in majaastii kugu soo fafaynto ka dhalanayso karaahi waaye haddii xaqiiqa waa in kugu soo fafaynaysa waxa waaye xaraam noqonaysa marka godka tag waayahay markii meesha lagu gudanayo xaajada oo la tago mususha oo geli rabo oo kale ama meeshii booska diimay saxara meel bana iska tahay booskii xujada xaajada ku gudado aduu tago wuxuu dhahay bismillaahi allahumma inni a'uudu bika min al-khubuthi wal khaba'ith rasuulaha marka khubudka waa shayaadiinta ragga ah khaba'ithna waa shayaadiinta haweenka ah waay ilaah laga mangala waaya maxaa yeelay musqulaha iyo meelaha loo diyaariyey qadaa ulxaaja waa ma'wa shayaadiin meesha lagu imaadey wax ka dhacdo dadka in musqulaha laga soo raaco haddii laakiin qof kitaab bismillahi allahumma inna acuudu bika min khubuthi wal khaba'ith ilaahay ka magan gashay khalaas oo xijaaban tahay wax taaba kar ma laha hadduu qofka soo baxo ilaahay yaa wax dhibkii ka soo saaray qashinkii ilaahay ka soo saaray inuu yidhaho ghufraanaka alxamdu lillahi alladii adhaba cani aladaa wacaafaani inuu yidhahda sunna ah allahu subxaanahu watacaala cashirkayna istinjaha aadaabtiisa halkaasuu nagu ogyahay wassalaamu calaykum waraxmatullah